fariinta maanta wasaaradda anigoo ana ka mid ah qayb wasaaradda qorsheynta waxa weeyaan inaan idin iftiimino in aad dalku ballaaran yahay meelo badan baa jira oo waxba laga qaban oo aan cidi gaadhin waxaan idin soo jeedin lahayn inaad meeshaana aan cidi gaadhin insha allah aad dalka ka mid ah inaad iyadana mashaariicaha aad u qoondaysaan insha allah waxaa markaa jirta howlo badan oo wasaaradda diinta waqaafta iyo hay-adaha islaamiga wada qaban karaan waxaa ka mid ah ka shaqaynta dhisidda awqaafta kala duwan ee maanta aada sida wanaagsan u dhistaan una meel marisaan runtiina la odhan karo arrinkaasi wuxuu u baahan yahay in kor loo qaado bulshadana la dareensiiyo camalka weyn ee aada ummadda u haysaan oo aanay dad badani war u hayn ama ay sahlanayaan wax sahlanna maaha 10 wasaaradood waxaanay qaban karinin ayaa qabatan oo ku saabsan inaad waqafkii islaamiga ahaa si wanaagsan aada uga shaqayseen keliya wuxuu u baahan yahay in la isku dubarido oo la isku duduwo sahlan ka sheegteen xataa laa yakuun hunaaka tacaarud oo loo sahan tago meesha ugu wanaagsan waan ogahay bilowgii la soo bilaabay waxbarashada dalka cidda ugu horeysay gurmatay ee iskuulada madrasadaha ka bilowday dalku waxay ahayn hay'adahaas ahaayeen iyo ururada islaamiga iyo carabta wadamada ka socda ee wax dhisay waxa la oran karaa imika inta hay-adood ee dalka joogta ee muwaadiniintaasi ay hogaamiyaan ee waxqabadkoodu muuqdo waxa la oran karaa runtii lagu misaali karo shayna horumarka ay dalka gaarsiiyeen waa wax la taaban karo oo xaqiiqo ah weeyaan wax la taaban karo xaqiiqo ah weeyaan haddaba samayntan aanu samaynay daladan waxay ahayd maadaama imika tusaalaha waxa ugu filan hay-adaha UN too dhaniba dalad bay hoos tegaan UN oo la yiraahdo oo qaabilsan wixii humanitarian iyo kaalmooyinka ay bixinayaan iyada marka taakulaynta ka shaqeysa haddana hay-ad waliba gaarkeeda u shaqeysa waxaan u sameynay daladaha international NGOs marka la yiraahdo la isku darana waxaan u sameynay madalad la yiraahdo consortium taasi oo aan u sameynay maamul iyo nidaam u sameynay haddana waxaan ku soo gabagabeynay maanta dhammaan hay-adaha ka yimid wadamada carabta iyo islaamka oo u sameynay madaladan oo loo bixiyay gurmad runtii dhismo fiican loo sameeyay hoggaan loo sameeyay iyaga istooranaya iyaga isnidaaminaya waa wax weyn weeyaan daladan waxyaabaha kalifay iyo fikradeedu siday ku timid 2016 abaarihii inagu dhacay ayaa la isu yimi waxa la garan waayay markii dhinac walba qayli ka soo dhacday meesha mucaawanada u baahan la geynayo iyo meeshii kale dadna madaxdii hay'adda islaamka markay isu yimaadeen horta waxay isla qaateen bal inay sahan midaysan sameeyaan sahankii midaysnaa markii ay sameeyeen waxa uu soo baxday wadanka gudihiisa dhammaan baahihii arrintaa waxay noqotay faa'iidadii koowaad ee la helo in la xog la helo baahidii wadanka ka jirtay meelaha ay u daran tahay xogta labaad ee wanaagsanayd ee markaa fikradda keentay waxay ahayd in la isqaybiyo oo qaar galbeed loo diro qaar bari loo diro oo si aan meel qura loogu dhicin wasaaradda diinta iyo awqaafta oo shaqadeedu tahay xidhiidhka hay'adaha noocaas oo kale ah iyo wasaaradda qorsheynta qaranka oo guud ahaan daladii noo haysay ah sida aynu ummadeenna u qorsheysanayno waxaynu qabanayno aad baan u hambalyeynayaa aad baan ugu faraxsanahay in ay maaragtay ay barnaamijkan ay isugu keen yeedheen marka runtii waxaynu u baahannahay dhammaanteen wixii aynu qaybinayno ama ha noqoto cunno ama biyo ama taakulayn kale oo aynu dadkeena siinayno in aynu ka wada shaqeyno ayaan aad iyo aad runtii u rajaynayaa inta nala shaqeysana aad iyo aad baan runtii u amaanayaa inta dhimanna waxaan leenahay kusoo wada biira wax dhibaato idinka hor imanaya xagga iyaga ma jiro mid walba gacan baanu siinayna mid walba waanu u fududaynaa wixii ay nooga baahdaan waxaan mar labaad idinka mahadnaqaya inaad ka soo qayb gasheen waxaa kaloo fursaddan uga faa'iidaysanayaa kaalinta bulshada aad kaga jirtaan waan aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa
dadka waxa publica ka shaqeeya shidaalka ku shaqeeya waa in loo sheego wuxuu qabtay waad ka mahad celinaa waad aqoonsanahay nabadgelyadan ku joogno in wacdigiinaasi uu qayb weyn ka yahay baan aaminsanahay arrimaad ka sheegteen oo dhanna waan mahad celinaya tiimkayagan cabdalle uu hogaaminayo oo haddii jeer soo organise gareeya arrintan iyo qolada coordinationka oo dhan qolada mediaha laakiin idinkana waxaan ku talinayaa in waxaa report laga soo saaro adag iyo caruurta ka soo noqota ama dadkeena Soomaaliland citizenka ah ee dibadaha ka soo noqda oo u badan tahay Yurub iyo Afrika waxaa soo dhabahay mandatory bay tahay ugu shaqeysaa marka hawsha aan qabanaa waa dadka nugul waa bulshada inta u badan marka waliba waxaan odhan karaa bulsho badan oo ku jirta barakacayooga ayaa jira 228 barakac baa wadanka gudihiisa ka samaysan oo dad ku jiraan wad garan kartaa marka inta laga guri walba ku noolo marka qiyaas ahaan laga soo qaado ay noqonayso qoyskii u yaraa amaba iskiilka la qaataa yahay 6 qof household-ka marka la yiraahdo waa bulsho badan runtii waana dadkeenii muwaadiniinta reer Soomaaliland ahaa waana dad ku dhibaataysan ilaa imikana u baahan gurmad badan iyo dadaal in la geliyo waxayna u badan yihiin dadkeenii miyiga waxa jira xataa magaalada laftigeeda dad miyigi ka soo barakacay oo urban refugee leeyahay oo barakacna ahayn magaaladana ku dhex baqtiyayo wax la haystaan jirin marka hay'adaha halkan maanta aan joogno ee ku bahoobay daladan gurmad aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa gurmad wax badan waxay ka tari doontaa in la isku xidhnaado oo hay'adaha islaamiga isku xidhnaadaan wax qabadkooda la isla ogaado in la iska kaashado kolba halka wax laga qabanayo haddii kale hay'ad waliba gooni u kacdo waxa dhici doonta in overlapping uu dhaco hay'ad halka wax ka qabanaysi isla meel lamida wax ka qabato warbixin fiican bay runtii noo soo jeediyeen walo warbixintaasi ayna siteski iyo meelaha ay ka qabteen report wax ka kala dhiman yihiin oo aynay ku jirin oo beneficiaries iyo dadkii ka faa'iideystay uu ahaa talaha waxaan ku soo dari lahaa in meel walo wax laga qabanayo sawirkeedii iyo sidii wax loo qabtay ay hay'adii wax ka qabatay iyo locationkii laga qabtay intaba lagu muujiyo waxa intaa dheer oo tala ku bixin lahaa maadaama ay barakacaan ka warramay dadka nugul ee una tirada badan la bulshadeennii ay yihiin oo bulsho badan halka ay naga maqan tahay ayna ku jirto waxaba yaraatay imika loo hayaana ay jirto hadda hay'ad waxay leedahay boolisiyo iyo siyaasado iyo xeerar inaad nagala shaqaysaan hay'adaha charity-ga ee islaamiga ah sidii dadka dib u xoolayn loogu sameyn lahaa miyigoodii loogu celin lahaa sababtoo ah dadkeena iyo dalkeenuba waxa aan ku noolayno ahayd waa xoolo dhaqato xoolihii way dhammaadeen nolosheenii magaalo iyo tiimihiiba waxay ku xidhnaayeen xoolahaas marka inaan bal dib isku daba qabatayno dadkan meel dhulkan laga saaro dib xoolayn loo sameeyo intii magaalo doonaysa la ganacsi yar loo abuuro waa qorshaha annagana hadda imika noogu jiro qorshaha dhow sidii dadka wax loogu qaban lahaa meelaha ay dhibiyada looga saari lahaa insha Allah waxaan rajaynayaa charity-ga dalada gurmadna inay nagala shaqayn doonto haddii Allah awoodda la yiraahdo waanan bogaadinayaa waanan soo dhaweynaynaa insha Allah amal khayriyo fiican baad haysaan way ka sii badiyo dadaalkana intaa insha Allah yaanu idin rajaynaynaa waan salaamayaa dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
faray wax la wada qabsado la isu tago la ururiyo xooggii tamartii iyo hantidiiba la ururiyo si wax loogu qabto ummadeenna jilicsan ee u baahan taariikhda dib loogu noqon maayo oo waa la ogyahay hay-adaha islaamiga ah iyo dadka islaamka iyagoo xagga ilaahay wax u dhiganaya inay ahaayeen waddankan inta halkaas soo gaadhsiisay ee bilowday hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday biyo tahay hadday quudin tahay waa la ogyahay taasi waa mid aan la isaga sheekaynayn imika waxaana keenaya islaamnimada oo iyadu aakhiro mar walba wax u sii dhiganaysa markay ifka wax ku qabato aakhiro wax u sii dhiganaysa laakiin ninkan gaalka ahi isagu dee magac buu adduunyada ku doonayaa magac buu adduunyada isaguna ninkan gaalkii ku doonayaa sidaa daraaddeed inaad isu timaadeen oo dallad samaysateen dalladaasoo magac fiican leh gurmad consortium noqotay oo isu timid xooggeedii midaysay runtii waa wax aada loogu farxo ilaahayna loogu mahadnaqo intaa dabadeed haddii aan hoos uga dego hawsha iyada annaga iyo halka nagaga aadan haddaan nahay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha aad baan idiin soo dhaweynaynaa waxaana albaabada wasaaraddu u furan yihiin cid walba oo ka mid ah hay-adaha islaamiga ah iyo NGO-yada iyo hay-adaha ku jira memberka ka ah ciddii biyo haysa inay noo timaado lana qorshayno dhibaatada maanta ayna haysata waddankeennuna ee abaarta keenaysaana sidaad ogtihiin abaartu waxay ka bilaabantaa u biyo la'aan biyaha inaan helaana waxay gaadhaan meelaha qaarkood sida gobollada galbeedka iyo gobolka Sanaag iyo Sheekh oo kale 400 mililitir oo biyo ah meelaha qaarkood sanadkii helaan sidii kal hore oo kale mararka la waayo mooyaane laakiin waxa laga yaabaa sanad 3 sano oo xidhiidha inaan helo 400 mililitir oo biyo ah meelaha qaarkood meelaha ugu yarna ay 100 mililitir helaan 400 mililitir waxaan kala hadnaa haba yaraatee ma jirtee markuu galabta roobku nagu da'o subaxaba wuxuu tagayaa badda ayuu biyahaasi galayaan runtii waana doqoniina weyn in aan qorshaysanana oo biyaha aan wax kala hadno si aan nolosheenii iyo tii xoolaheenna iyo tii deegaankeenaba aan uga faa'iideysano waayo roobkii haddana dhinaca kale wuxuu inagu hayaa baabiintii deegaanka isagoo carradii naga qaadaya isagoo dadkii imika inaga leenayo wad aragtay markuu roob da'aba imika maalin walba waxaa la leeyahay biyaa cid qaaday hargeysa gudaheeda aad arkaysaa la leeyahay maalin walba dad baa cid qaaday runtii dowladda maanta joogta ee uu madaxweyne Muuse Biixi hogaaminayo qorshaheeda koowaad sidii hore la idinku sheegay saddexda priority mudnaantu waa biyo miisaaniyadda inta ugu badanna waxa ku